بسم الله ayaan caawa maxaad leedahay oo aad noo haysaa waa adigan horta nada ka muuqdee caawa soo maaha wallaahi billaahi waxaan hayaa caawa gabaygii sayid maxamed cabdilla xasan baa wuxuu ahaa allah ayow la kala miiran yahay milal khayraacin allah ayow la kala miiran yahay milal khayraacin war hadda milal waa la raacay xilliga la taagan yahay baa waxayba noqotayba xilligii war waxaad moodaaba inay tahay maanta maalintu ka hadlayay inay tahay wayba tahayba horta waayo Soomaalidiiba inna xilligan bay u heeriyeysatay in Itoobiya raacdo dadna waa dad xaqoodii sugayay oo xaqoodii baa dilaacay maxaad adiguna leedahay xaq shacabka dilaacay marka waxaan leeyahay wada xilligii waqtiga gumaysigii xiqsana inuu xagal daxsayay kacdoon xoog la socday intaad xaq ka kabsataan xaqinno soo gurmada وضع حلقية وقتها قميسي حقسنا إنو حقل دعسياي كعدون حاض لا سعدي انت بحكا كبستان حقي نوصو قرمذا waxaa lagu jiraa maanta maalintii la kala miirmay maantii xaq uu qof walba xaqiisa uu qaadan lahaa la jooga waxa weeyaan xilli kacdoonna jira meel kasta kacdoon baa adduunka ka jira waliba siiba qoomiyadihii Itoobiya wada aragtay waa la burburay waa la kala yaacay innaguna maxaan ahayn dad kolkii horeba intaasoo sanadood iyo intaasoo qarni xaqooda u soo halgamaa shacab aad iyo aad qurux badan oo aniga shacabka reer Ogaadeniya waan ugu mahad celinayaa inta halganay soo mareen intii ay u soo halgameen xaqoodii maantana waa maanta midhaheedu maandeeq ay goosan lahaayeen marka taas aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya inta xaqa jecel ee damiirkoodu shaqaynayo ee Soomaalinimadka jecel ee ma aragtay xuskoodu soo jeedo ee habeen dad waxay jira hadda ku gudayeen dadka hadda maalintii cadada socday iyo maalintii baan ka hadlayaa yaan ku baraarujinayaa oo leeyahay xaqayna u soo gurmada oo aan kacdoonka ummadda reer Ogaadeniya ay ku jirto iyo qoomiyadaha Itoobiya aan ka faa'iideysano waxaan ku jiraa xilli la kala guurayo waxaan ku jiraa xilli Itoobiya xilligii ugu foosho xumeyd baan ku jiraa waa xilligii inagu midhihii aan beeranay naftood horayaashii jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya dhuuxoodii iyo dheecaankoodii bay noo soo shubay naftoodii iyo maalkoodii bay noo horay dhiigga geesiga waa xilligii aan inagu ku istareexi lahayn iyo awlaadii ay ka tageen marka waxaan dhihi lahaa xaqaaga ha garan waayin waa maalintaadii waa maalintoodii marka aan ka faa'iideysanaan leeyahay shacabka reer Ogaadeniya meel kastoon joogno waa maxay dadka hadda calanka Itoobiya la kowsaday iyadoo burburaysa ma la yaabtaynaadeen dadka xilligan Itoobiya iyadiiba ay nacday calankoodii dadkii hadda ay Tigray way ka dhuumanayaan calanka Itoobiya qof walbana wuxuu rabaa qoomiyadiisii iyo wadankiisii inuu la go'o war xilligaas dadka calanka Itoobiya qaatay ee meel la istaagay baan aad iyo aad ula yaabanahay war dameer xuma war fool xuma war xaqoodii bay duutiyeen marka waxaan leeyahay ummadaas waan aragnaa qof walbana xaqiisii iyo wuxuu wadanka u soo galabsaday iyo wuxuu wadanka u geystay ayuu leeyahay nin kastana lama iloosana qof kasta haduu is leeyahay war waxaa jira dad maalintiin xaqa u socda habeenkiina xaqa u socda war waxaa fiican in qofku muwaafaqo leeyahay qofku waxaa fiican inuu hadaf leeyahay laakiin maal Itoobiya ma rabto qofku maalin xaqa u socdo qof maalin xaqa u socdo ma rabto marka waxaan dhihi lahaa ummadda reer Ogaadeniya aan ka faa'iideysano dadkaasna anaga meelaha ka dhawaaqaya calanka Itoobiya xilligan ee qashanka ee gudaafada ee xilligan calanka Itoobiya wata ee dusha saartay ee isceebeeyay ee xilligan wax u dhiman ayna jirin aad baan uga xumahay maxay ahayd xalada waa la doogayeen la dacro wallahi in badan baa halkan nagu soo jiray marka waxaan leeyahay ummadda reer Ogaadeniya aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa inta halkan ka jecel inta samaha jecel jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya aad baan u salaamayaa waxaan u dirayaa ummadda reer Ogaadeniya oo dhan salaan kal iyo laaba waxaan leeyahay yaa la doogay yaa la dacaroon aad baad u mahadsan tahay ilaahay ha ku barakeeyo annagana waanadaada ilaahay ha nagu anfaco